runtii sharaf bay ii tahay aad ayaanan ugu faraxsanahay maanta in aan ku soo noqdo magaalada Kismaayo waxaan kale oo sharaf ii ah aan u mahadnaqayaa dadka faraha badan ee reer Kismaayo ee reer Jubbaland igu soo dhaweeyay airportka ilaa aanu ka nimaadno halkan in badan oo kamid ah cuqaasha nabadoonnada waxgaradka magaalada siyaasiyiinta dumarka dhalinyarada waxaan rabaa in aan idin la wadaago in aan runtii maqsuud ka ahay soo dhaweyntiina wanaaga iyo kalgacaylka aad na tusiseen sida aad maqsuud uga tihiin hawsha iyo barnaamijka aan wadno waxaan rabaa in hawshaasi aan runtii aad ugu faraxsanahay inaan idin la wadaago inta markii laga tago waan dareemayaa dadka in badan oo kamid ah ilaa subaxii qoraxday joogeen haddana waxaan joognaa waqti duhur maartay ayaanu joognaa waxaan rabaa marka inaan soo koobo waxyaabaha aan oranayo kalmado yar aan ku soo koobo dib baan isugu soo noqon doonaa shirar badan oo waaweyn baan ku qaban doonaa magaalada dadku si gooni gooni iyo kooxaan isku arki doonaa aan u sheekaysan doonaa haddii alla yiraahdo hadafka aan Jubbaland ka leenahay ayaanu la wadaagi doonaa hase ahaatee hadda inaan halkaan idinku sii hayo intiinan iyo inta dibadda joogtaba ma doonayo sidaas awgeed waxaan rabaa inaan iraahdo anigu waxa aan ku istaagay waa hadaf weeyaan hadafka aan ku istaagay ma aha damac oo kaliya damacu qorshahayga ma aha inaan wax damco qorshahayga waxa weeye inaan Jubbaland hogaamiyo weey Jubbaland waxaan rabaa inaan xuso muddadii ay dhisnayd wax badan baa u qabsoomay dad badan oo reer Jubbaland ah ayaana ku amaanan qaybta ay ka qaateen horumarka iyo waxqabadka wixii horumaray ee Jubbaland ka dhacay oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada ciidamada naftooda u huray ku shahiiday in badan oo kamid ana ay dhaawac yihiin oo ay jajabeen oo ay lixaadkooda u beeleen in kuwaas kamid ana ilaa hadda ay ku jiraan difaaciyada dhowr casho ugu dambeysay tiro fara badan oo ciidamada kuweena Jubbaland iyo federaalka ah oo iskaashanayo in badan oo kamid ayaa ku leeday dagaaladii halka ka dhacay marar badan oo dagaalada dhacayna guulooyin ay ka soo hoyiyaan laakiin waxaan rabaa in aan iraahdo guusha Jubbaland wax laala wixii guulo la gaaray wax uu shakhsi keligii kuma sheegan kara ma anigoo qirayo in adeerkay Axmed Maxamed Islaam uu hogaanka Jubbaland ahaa muddada aanu soo marnay oo door uu ku leeyahay wixii qabsoomay haddana ma aha wax isaga keligii loo nisbayn karo in la qariyo dadkii faraha badnaa ee siyaasiyiin lahaa ee qaarkood siyaasadda dibadda laga dhigay qaar kamid ah ciidamadii ku soo dhaawacmay ee ku jajabay ee soo halgamay dibadda la dhigay in badan oo kamid ah laga tarxiiray deegaanka kuwa badan oo kamid ah cunaqabatayn la saaray kaliya sababtuna ay tahay in ay madaxweynaha ka aragti duwanaadeen waxaan rabaa dadka iyagu laftooda inay mudan yihiin in la xuso doorkii ay ka qaateen Jubbaland horumarkeedana in lagu siiyo amaanta ay ku lahaayeen oo aan loo tiirinin qof shakhsi ah kaliya in la yiraahdo Axmed Maxamed Islaam baa waxa qabtay taasi markii laga tago waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa doorashada hadda waxaan ku jirnaa xilli doorasho ani waxaan isku soo sharaxay waxa weeye Jubbaland musharax baan ahay magaaladeedii baan joogaa dadka waxaan doonayaa reer Kismaayo reer Jubbaland qaybaheeda kala duwan ay joogo isbedelka markii aad u baahan tahay waxaan rabaa laba eray haddii iyo laakiin waa in meesha laga saaro waxaan u baahanahay in lagu dhiirado loo istaago Jubbaland iyo mustaqbalkeeda in nin uu 13 sano albaabka ka soo xirto oo markay 5 sano u dhamaato afartii loogu talagalay kuwa kale ku darsado odayaashii baarlamaanka isku keeno gacmaha taaga yiraahdo
guddi soo samaysto howl uu sharaxdo haddana uu yiraahdo waan isdoortay inteena kalena aan daawadayaal ka noqono waxaasi wax la aqbali doono maaha marka waxaa la doonayaa taasi in ay dadku reer Jubbaland ku dhiiradaan ay yiraahdaan wixii wanaag ah oo qabsoomayna waan qiraynaa wixii laga gaabiyeyna waan u joodaynaa laakiin kuma mashquulayno laakiin waxaan rabnaa talada mustaqbalka inay dadka dhaxdiisa inay taalo taas waxaan uga goleeyahay in aan cadeeyo doorashada aanu rabno waa doorasho xor ah macnaheedu waxay tahay guddiga doorashada waa in laga heshiiyo dadkan maamulka doorashada haynayo waa in dadka musharaxiinta tartamaya ay ku qanacsan yihiin oo ay raali ka yihiin inuu nin isagu iska soo qorto saaxiibadii oo uu yiraahdo waa guddiga doorashada taa ma shaqeynayso tan labaad goobta doorashada lagu qabanayo waa inay tahay goob dhaxdhaxaad ah ammaan ah dadka musharaxiinta ah ay u siman yihiin waxa kale oo iyadana muhiim ah baarlamaanka iyo xulidiisa in odayaasha dhaqanka ahaa ee rasmiga ahaa inay xulayaan inaan odayaasha deegaanka degan ee qoys kasta odaygooda iyo nabadoonkooda inaan lagu faragelinin qofka uu rabo oo uu arko qoyska ay isla gartaan inuu ayaga ku haboon yahay in dawladda iyo nidaamka iyo systemka jiro aysan ay faragelinin baa loo baahan yahay marka taas iyadana waxa weeye in la helo hadii la doonayo inay doorasho cadaalad ay dhacdo weey intaas hadii la waayo waxay noqonaysaa shimbiraha howheesa waqtigii baa la gaaray Isa Cabiya taasna qayb ka noqonana diyaar u mani waxaan rabaa marka inaan mar haday sidaa tahay anigu iyo inta igu fikirka ah waxaan aaminsanahay in waxa aanu haysano amaanka ugu horeeyo is wada noolaanshaha ugu horeyso in laga hormariyo wax kasto iyadoo haddana aanan ka tanaasuleynin waxa aanu aaminsanahay ma dhici doonto waqtiga hadda lagu jiro Soomaalidu waxay tiraahdaa dhurwaaga la tagida bartay ka ridida waa ku cayb haddii marka wax la iska farsamaysan jiray waagi iyo waagan isku mid ma tii hore waa soo xirmaysaa waxa anigu ii muuqato reer Jubbaland in isbedel in aan xaqiijino aanu qarka u saaranahay adeerkay Axmed Maxamed Islaam nin odaya oo soo shaqeeyay inaan retirement u dirno oo uu maaragtay oday noo noqdo maxaa la dhihi jiray hadii uu si wanaagsan xilka uu kaga tago oo uu garto rabitaanka dadka mujtamaca iyo badidooda in ay ka muhiimsan tahay mid shakhsiga ah waxaan u ogolnahay marka inaanu la shaqeeyno maxaa la dhihi jiray aan u sameeyno maxaa la dhihi jiray xurmo iyo maamuus oday gaanagii aan ku ogaano soo shaqeeyay soo waqti wax qabtay xurmaysan talada dadka aan kula noqonayna uu ka mid noqdo odayaashanada uu yahay waan ogolnahay laakiin haduu yiraahdo waxaan aniga ahayn keligay umba waayada waxa la yiraahdaa danaha kuumadan matalayaabo yaan difaacaya oo aniga oo keligii kuumadu noqday marka anu umba Jubbaland markii laga hadlayna aniga umba Jubbaland ani hadii la waayo Jubbaland way dumaysaa waa kala tagaysaa marka intaba waxaan aaminsanahay sax ma wax qofka dadku waa fara badan yihiin in badan waxa jirto ka fikir wanaagsan ka khibrad badan ka aqoon badan laga yaabo in ay wax war u wada lahaayeen annagoo haddana qirayna wixii isaga uu soo qabtay iyo halka uu wax keenay hadda waxa la joogaa xilligii hore loo socon lahaa marka waan isku soo noqon doonaa talada hawsha sidii aan u meel marin lahayn waxaan rabaa inaanu isugu nimaadno waxaan rabnaa inaanu ku dhiirano waxa aan doonayno wax kasta oo qofka bini aadamka uu aaminsan yahay oo aanan maxaa la dhihi jiray laga dhabaynin oo loo istaagin ma suuragalaan marka waxaan ku kalsoonahay dadka reer Jubbaland in hawshaasi ay gundi u noqon doonaan isbedelna ay la imaan doonaan aad baad u mahadsantihiin mar kale waan idin mahadnaqayaa